Assalamu calaykum asxaabta ku soo dhawaada channelka aragtida maanta. Muuqaalkeena maanta waxaan ku sharaxaynaa filim khiyaali ah oo Korean ah kaas oo magaciisu yahay Finishing Time A Boy Who Returned. Uga filimka dhakhtar ku takhasusay maskaxda carruurta ayaa wareysi la yeelanaya gabadh lagu magacaabo Suurin aad ay u argagaxday marka dhakhtarku uu la soo baxay kaamirada si uu u duubo wareysiga. Dhakhtarka wuxuu Suurin ka codsaday in ay uga sheekayso qisadeeda. Suurin ayaa ku bilowday in hooyadeed ay guursatay nin lagu magacaabo Dukin dhowr sano ka hor. Wax yar kadib guurkoodana hooyadeed ay geeriyootay. Tan iyo markaas Suurin waxay la nooleed Dukin oo ah aabaheeda labaad. Dukin ayaa waxaa loo magacaabay inuu ka shaqeeyo goob dhismo ah oo ku taala jasiirad lagu magacaabo Wano. Labadooduna waxay u geereen jasiiradda kadib dhimashada hooyadeed. Suurin waxay noqotay mid niyad jabsan oo aan faraxsanayn, ma hadal badnayn, mana aysan jeclayn aabaheeda labaad. Waxaa la geeyay dugsi ku yaala jasiiradda halkaas oo ay fursad u heli kartay in ay ku kasbato saaxiibo badan, laakiin waxay ka doorbitay in ay kaligeed ahaato. Aabaheed ayaa shaqeeya xilliyada habeenkii isagoo madax ka ah dhismaha tunnelka. Qaraxyo ayaa ka dhaca tunnelka inta lagu guda jiro dhismaha. Dadka deegaanka ayay mamnuuc ka tahay in ay gudaha u galaan dhismaha habeenada ka mid ah. Suurin waxay isticmaalaysay taleefankeeda gacanta iyadoo akhrineysay faallooyin ku saabsan bloggeeda. Markii ay hooyadeed dhimatay, Suurin waxay damacday in ay adduunka ka tagto iyadoo baaris ku sameynaysa siyaabaha ay arrintaa u sameyn lahayd. Waxay bilowday in ay xiisayso faallooyin ku saabsan makhluuqa iyo wixii la xiriira. Dadka ayay kala hadashaa mowduucan iyadoo isticmaalaysa internetka xitaa markii ay joogtay iskuulka. Waxay si lama filaan ah uga tagtay kombiyuutarkeeda oo furan kaas oo u oggolaanaya ardayda ay fasalka yihiin inay akhriyaan faallooyinkeeda oo ay ku maadsadaan. Suurin markii ay guriga ku soo laabatay, waxay la kulantay wiil lagu magacaabo Sungimin oo ku nool xarunta agoomaha. Sungimin ayaa isbaray wuxuuna isku dayay in uu la saaxiibo Suurin, laakiin waa ay iska dhiga tirtay. Maalintii xigtay, intii qadada lagu guda jiray, Suurin ayaa la kulantay Sungimin iyo saaxiibadiis oo ka sheekaysanaya boggeeda. Sungimin wuxuu sheegay in uu galay jiha kale kadib markii uu akhriyay faallada. Maalinkaas Sungimin ayaa soo daba kacay Suurin iyadoo guriga u sii socota. Markii uu u yeedhay, wuxuu u sheegay in uu rumaysan yahay wax walba ay ku qortay boggeeda, iyagoo ka duulaya xiisaha ay wadaagaan ee hababka dabiiciga ah. Labadooduna waxay noqdeen saaxiibo. Suurin waxay samaysatay alifbeeta iyada u gaar ah si ay ula xiriirto Sungimin si qarsoodi ah. Waxay bilaabeen inay isticmaalaan maalin kasta internetka si midba midka kale uu uga tago qoraallo xasuus ah. Suurin maalinkaas dugsiga kadib waxay u wareeg tageen magaalada. Suurin ayaa Sungimin keentay guri alwaaxyo ah oo cidlo ah kaas oo ku yaala kaynta. Waxay sahamiyeen guriga oo ay ka sheekaysteen waqti dheer. Suurin waxay bilowday in ay jacayl u qaaddo Sungimin. Maalin maalmaha ka mid ah, Suurin ayaa aragtay Sungimin iyo 3 saaxiibadiis ah oo qorsheynaya in ay tagaan goobta dhismaha si ay u soo daawadaan qaraxyada dhacaya. Way ku biirtay waxayna sii mareen kaynta si dadka waaweyn aysan u arkin. Kolkii ay ka gudbeen xayndaabka goobta, mid ka mid ah carruurta ayaa dib ugu soo laabtay gurigiisa. 4 kale waxay ku dhuunteen dhagax weyn iyagoo sugaya in uu qarax dhaco, laakiin way niyad jabeen markii uu qarax dhici waayay. Intii ay hawdka dhex socdeen, waxay arkeen god yar, waxayna go'aansadeen in ay sahamiyaan oo ay mid gudaha ugu galaan godka. Ugu dambeyntii, waxay arkeen walax dhalaalaysa oo ku dhex jirta biyaha dhammaadka godka. Suurin ayaa u qaadatay in uu yahay meteor. Sungimin ayaa biyaha dhex galay si uu u soo saaro walaxda dhalaalaysa. Markii laga soo saaray godka, shaygii wuxuu joojiyay dhalaalkii. Carruurtii waxay la muuqatay in uu yahay ukun. Mid ka mid ah wiilasha oo lagu magacaabo Tishik ayaa sheegay in ukuntu laga yaabo in ay tahay sixir ay quruumo hore isticmaali jireen. Awowgiis ayaa u sheegay in habeenada dayaxu buuxo uu godka ka soo muuqdo sixir ay quruumo hore dhigeen. Qofkii godka galaana uu ka soo bixi doono isagoo qof waayeel ah. Carruurta kale ma aysan rumaysan sheekada uu wiilkani ka sheekeynayay. Suurin waxay ogaatay in biinkeedii timaha ugu xidhnaa oo ahaa hadiyad hooyadeed siisay uu ka maqan yahay. Waxayna dib ugu soo laabatay godkii si ay u raadsato biinkeeda, halka wiilashii kale ay aad ula yaabanaayeen ukuntii. Waxay heshay biinkeedii, laakiin sidoo kale waxay ogaatay in ukuntii dhalaalaysay ay dib ugu soo laabatay biyaha dhexdooda. Iyada oo wareersan ayay soo baxday si ay u fiiriso ukunta, balse waxay aragtay ukuntii oo jabtay, saaxiibadeedna ay maqan yihiin. Waxay ka raadisay dhammaan kaynta iyo hareeraheeda ilaa dayaxii uu madoobaaday. Aakhirkiina waxay ku luntay kaynta, waxayna ku qasbanaatay in habeenkaas ay kaynta dhex seexato. Maalintii xigtay,
ciidanka booliska ayaa carruurta ka raadinaya kaynta. Baare lagu magacaabo Haan ayaa laga dhigay madaxa baaritaanka. Wax yar kadib, boolisku waxay heleen Suurin oo miyir daboolan oo kaynta dhex taala. Nasiib wanaagsi waa ay nooshahay oo way fiican tahay. Dambi baaraha ayaa weydiiyay waxa ku dhacay carruurtii kale, waxayna u sheegtay wax walba oo ku saabsan godka iyo ukuntii dhalaalaysay. Baaraha iyo dadku ma aysan rumaysan sheekadeeda. Xataa waxay u kaxaysay kaynta si ay u soo tusto godka, balse ma helin godka meesha uu ku yiilay. Godkii ayaa lumay kadib markii uu buuxsamay dayaxii. Intaa dabadeed, waxaa dambi baarista lagu wargeliyay in meydka mid ka mid ah wiilasha la la'yahay oo lagu magacaabo Chiwok laga helay dhulka hoostiisa, xeebta meel 20 kiiloomitir u jirta magaalada. Waxaa la sheegay in sababta dhimashada wiilkan ay tahay neefta oo ku soo booday, mar haddii qofka dhulka hoostiisa lagu aasana uu neef qabatoobayo. Kiiska ayaa loo qaatay inuu yahay afduub. Toddobaadyo ayaa ka soo wareegtay dhacdadan, laakiin labadii wiil ee kale weli lama helin. Sang-min la'aantii Suurin waxay noqotay mid aan faraxsanayn oo aad u murugaysan. Sidoo kale waxay ku wareersanayd in ay dadku rumaysan waayeen xaqiiqda ay sheegayso. Maalin maalmaha ka mid ah, waxay maqashay sawaxan gurigeeda gadaashiisa ka imaanaya. Markii ay hubisay, waxay aragtay nin u ordaya dhanka kaynta. Intay daba orday ayay kaynta gashay. Daqiiqada markii ay daba ordaysay ayay dhulka ku dhacday. Inta uu soo dhawaaday ayuu si la yaab leh u eegay, iyadoo Suurin naxdin darteed baraf noqotay. Ninka ayaa markii ugu horreysay hadlay oo u sheegay in uu yahay Sang-min. Suurin markii ay maqashay magaciisa, waxay ka soo baxday xaaladii naxdinta ahayd, wayna carartay iyadoo ooynaysa. Waxayna hor istaagtay baabuur uu watay Dukin oo ay si degdeg ah ugu sheegtay arrinka ninkan. Booliska ayaa lagu wargeliyay sida ay wax u dhaceen, waxayna bilaabeen baaritaan ay ku raadinayaan ninkan, iyagoo u malaynaya in uu yahay afduubihii. Dambi baare Haan ayaa Suurin wax ka weydiiyay arrinka ninkan, waxayna u sheegtay in uu iska dhigayay Sang-min. Booliska ma aysan helin afduubihii, laakiin waxay gacanta ku dhigeen xasuus qorkii Suurin iyo Sang-min uu midba midka kale uga tagi jiray. Marka ay aragtay boggeeda Suurin, waa ay yaabtay sababtoo ah waxaa ka buuxda qoraalada Sang-min. Isagoo isticmaalaya luuqadooda u gaarka ah ayaa wuxuu qoray wax kasta oo dhacay kadib markii ay Suurin godka gashay si ay biinkeeda timaha u soo saarato. Wiilasha ayaa xiiseynayay in ay ogaadaan waxa ukunta gudaheeda ku jira. Sidaa daraaddeed, Sang-min ayaa dhulka ku dhuftay iyagoo aan sugin Suurin. Nasiib darrose waxay u soo baxday in ay ukuntu maran tahay. Kolkii ay Suurin soo laaban weyday in muddo ah, Sang-min ayaa soo galay godkii gudihiisa, wuxuuna arkay in ay ku barafogday meesheeda. Waxa uu isku dayay in uu la hadlo oo uu taabto, balse ma aysan u jawaabin. Daqiiqada kadib, waxa uu arkay dhibic biyo ah oo hawada sare taagan. Godkii ayuu ka soo baxay, waxa uuna eegay korkiisa, waxaana indhihiisu qabteen shimbiro iyaguna meeshooda ku barafoobay. Wiilashii waxay soo aadeen magaalada oo waxay arkeen in qof walba oo ay ku jiraan qoyskoodu ay hakadeen. Tani waxay ka dhigan tahay inay garwaaqsadeen in waqtigu ka istaagay qof kasta marka laga reebo saddexdooda, taas oo la macno ah inay samayn karaan wax kasta oo ay rabaan. Dhowrka maalmeeda ugu horreysay waxay ku jiraan farxad iyo damaanshaad, iyagoo marba dhinac ay rabaan u soconaya. Waxayna cunayeen oo cabayeen wax allaala waxa ay rabaan. Waxay seexdaan mar allaala marka ay rabaan, waxayna ku ciyaaraan waxay doonaan. Bil iyo xoogaa kadib, waa ay caajiseen. Markaas waxay go'aansadeen in ay isaga tagaan jasiiradda oo ay aadaan magaalo kale si ay u hubiyaan in ay dhab ahaantii yihiin dadka keliya ee dhulka ku dul nool ee dhaqdhaqaaqi kara. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Fadlan la soco qaybta labaad ee filimka oo ha moogaan. Fadlan daawade haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe noo saar, like iyo share tan ha naga ilaawin. Mahadsanid.